عرفات waxaan nooga warantaa taariikh faneedkii aabaha Allah u naxariistay dabcan maxamed waad mahadsantahay aabahay dabcan hadaan dhamaanto wax ka sheekeen dad igaga aqoon badan oo dabcan wax badan ay soo wada shaqeeyeen baa jir laakiin inta aniga ka aqaano aabahay horta waxa ku dhashay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan sanadii 1950kii aabe keligii fan muusan ahayn aabihiis ama awowihii Nuur Ido wuxuu ka tirsanaa ururkii leegada qaasatan wuxuu u qaabilsan dhanka gabayadu si weyn ugu dhiirigelin jiray ayeeday aabahay dhashanay waxay si weyn u garaaci jirtay turumbada oo astaamaha kala duwan ee turumbooyinka aad u taqaanay waxayna qayb ka qaadan jirtay soo dhaweynta madaxda caalamiga ah markay imaanayaan dalka dabcan halkaas ayuu aabahay ka keenay dhanka murtida 1950kii markuu dhashay waxbarashadiisii isla degmada Buulaburde ayuu ku soo qaatay dugsiga Quraanka Kariimka halkaas uu ku soo bartay waxbarashadiisa oo saddex halkaas ayuu kaga baxay 1967 ayay ahayd markuu sida tooska ugu biiray ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed halka markaas oo laga diiwaan galiyay xiradii difaaca cirka ee Akslamagalaay ama Beledweyne halkaas uu si toos ugu qortay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed tababar ayuu halkaas ka galay oo muddo sanad ah 1968 waxa loo wareejiyay Burco halkaas oo tababarkiisa labaad uu ku qaatay kadibna wuxuu ka mid noqday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu si toos uga mid noqday maadaama halkaasna wuxuu kaga biiray dhankii fanka asliyan fan uu ahaa aabo wadanka markii xisbiyadii ay ka jireen xilligii Cabdirashiid Cali Sharmaake nidaamka axsaabta ay jireen xisbiyadu u heesi jiray oo kamanku u garaaci jiray maadaama si toos markaas wuxuu ugu biiray 68 kooxdii General Daawud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed rag badan oo kooxda isku soo dhaweeyay waxa kamid ah Xasan Xaaji Cabdullaahi Xasan Ganey waxa kamid ah Maxamuud Xaaji Soofo Kaneeco Allah yarxamo dad badan oo dabcan markaas halkaas ay saaxiib wadaag iyo ku ahaayeen asxaab si weyn u soo dhaweeyay halkaas oo markii fankiis oo bilaabay halkaas dabcan aad u soo dhaweeyay odayga waa tahay wax ma kala socotaa heesiisii ugu horeeyay markii fanka uu soo galay oo qaaday dabcan heestii ugu horeysay oo aabo uu qaado gorgor ayaa la 68 ayay ahayd Xasan Ganey sameeyay balse heestii sidoo weyn u shacab baxday Soomaalidu jeclaatay oo caalamka ama dalka Soomaaliya si weyn u gashay waxay ahayd heestii General Daawud ama heestii Daljir hadba sidoo dadka u yaqaanaan ama Axmed Guri heestaas oo la qaaday 1971 dalacsiintii ugu horeysay halkaas ayuu ka helay aabo 1971 ayay ahayd subaxaha kamid ah oo markaas booqasho Hargeysa ku imaanay Maxamed Siyaad Bare ayaa munaasabadii heesta laga qaaday Maxamed Siyaad Bare heestii markuu dhageystay oo soo istaagay mar labaad heestii waa lagu celiyay bis ayuu yiri mar labaadkii oo heestii uu qaaday kadib halkaas alif loo ahaa laba alif la dilacsiiyay markaas oo heestaas uu qaatay Maxamed Siyaad Bare wuxuu amray in heesta si degdeg ah